Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar kale iyo la baro. Maantana waa prime numbers iyo composite numbers. Haddaba intaanaynu bilaabin prime numberska iyo composite numberska waxaynu isxasuusinaynaa lambarada loo yaqaano natural numberska. Natural numbers, yes. Numberska iyo factorieska ama factories ama divisorska waxaa loo yaqaano. Natural numbersku inta badan waxaa lagu yaraa qaldaa whole numberska waxay ku kala duwan yihiin numberka zeroga. Natural numbersku zero ma laha, whole numberskuna zero ka bilaabma. Natural numbersku waa lambarada wax lagu tiriyo sida 1 2 3 4 5 and so on. Marka lambaradaas ayaa ah natural numberska oo aan kuma jiraan lambaradaas minuskooda ama negativekooda -1 -2 kuma jiraan, jajabkuna kuma jiraan. Marka waa 1 2 3 4 5. Factorieskuna waxa weeyaan waa laba lambar oo kasta oo marka la isku dhufto number ku siiya. Labada lambar ee lambarka ku siinaya ayaa la yiraahdaa factorieska numberka weeyaan. Sida imika a times b haddii ay c ku siiso waxaa la odhan karaa a iyo b waxa weeyaan waa factories of c ayay noqonaysaa. Ama lambaradan a iyo b waxay labaduba u qaybsamaan c, sida for example oo kale 9 factorieskiisu wuxuu noqonayaa 3 iyo 3 waayo 3guna wuu qaybsamayaa labadan 3gan wuu qaybsamayaa 9ka midda kalena 3 times 3 waxay ku siinaysaa 9. Haddaba lambarada naturalka iyo natural numberska iyo factorieska iyo divisorska intaasaynu kaga gudbaynaa. Waxaynu u gudagelaynaa prime numbers oo ah qaybtii koobaad ee cashirkeena maanta. Prime numbersku waa maxay marka? Prime numbersku waxaa qasaba inay inta lambar kasta oo lagu yahay lambarkaas prime numberba waa inuu conditions uu satisfy gareeyaa ama condition buuxiya. Conditionka koobaad uu buuxinaya waxa weeye horta ma yahay lambarkaasi natural number. Natural number ma yahay. Waa number 1. Natural numberka haba ahaadee natural numberkaasina condition labaad weeye. Natural numberkaasi ma ka weyn yahay 1. Conditionka saddexaadna waxa weeyaan lambarkaasi ma leeyahay factorieskiisu ma yihiin isaga iyo 1. Numberka 1ka iyo itself. Marka lambarka lagu weydiinaya for example haddii lambarka lagu weydiinaya uu 3 yahay waa inay noqdaan factorieskiisu 1 times 3 oo keliya. Waa lambarka 1ka iyo isaga itselfkiisa. Haddaba tusaale halkan aynu ka bilaabanaynaa. For example let's say numberkaas 3 halkaas aynu kusoo qaadanayba. Let's say number 2ga. 2ga haddii lagu yidhaahdo ma yahay 2gani prime number waxaad oranaysaa halkan baad eegaysaa waxaan natural number ma yahay. Yes waa yahay. What's the natural numberski waxaanu soo dhiganay inuu natural numberku yahay 1 2 3 4 5 oo ah lambarada tirada ah. Haddaba ma ka weyn yahay qaybta labaad baad eegaysaa waana saddexdan condition oo dhan waa inuu satisfy gareeyaa ama uu wada ogolaadaa marka aad ku test gareynaysid. Markuu baaso saddexdaasba ayuu numberkaasi noqonayaa natural number. Hadduu mid ka mida ku dhacana ma noqonayo. Marka tan wuu baasay. Tan labaad ma ka weyn yahay 1? Yes wuu ka weyn yahay waanu baasay taasna. Tanna wuu baasay oo yes halkan weeye wuu ku jiraa. Ta saddexaad marka waxa weeye ma yahay maxaa productigiisa maxaa ku siiya 2 maxaa ku siiya marka 2 maxaa ku siiya waxa ku siiya waa 1 times 2 kaliya miya mise wax kala ku siiya. Haddaad u noqoto tablekii multiplicationka 2 waxa kaliya ku siiya waxa weeye waa 1 times 2. That means tanna wuu baasay. Marka yes it's a prime. Marka waxa weeye yes it's a bn. Bn baynu soo gaabinaynaa marka oo ah prime number. Haddaynu numberka u noqonano maxay to numberka 4 oo kale haddaynu tusaale u soo qaadano. 4ka imika halkan ma baas gareeyay. Yes wuu baas gareeyay conditionkan waa ku baasnay. Conditionkanna ma baas gareeyo greater 1 ma yahay 4ku. Yes. Haddaba halkan conditionkan buu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa 4 miyuu yahay maxaa 4 productigiisa keena. Tablekii 4ka haddaynu dib ugu noqono waxaynu arki karnaa inuu yahay 1 times 4 waa 4 baa ku siisa. 2 times 4na 2 times 2na baan leeyahay 4 buu ku siiyaa. Marka halkaa waxaa ka cad in 1 iyo itself mar walba waad ogtahay lambarka iyo isaga laftiisa inuu yahay factorieska lambarkaas iyo waxa kale halkan soo raacay 2. Marka waa more than isagii
iyo 1kii marka number 2 baa soo raacay conditionkana maxay ahayd 1 and itself oo keliya waa inuu factors ku noqdaan that means no prime number ma aha and 7 haddaad u noqotid oo kale 7ku waxa weeye markaa waxa weeyaan isagina waa 1 times 7 unbaa ku siiya 7 markaa halkana wuu baasay halkana wuu baasay halkana waa 1 times 7 baa ku siiya marka waxa weeye yes waa prime marka lambarada primeka saasaad ku ogaan kartaa haddaynu usoo noqono composite numberskuna muxuu yahay composite numberskuna waxa weeye waa lambarada aan primeka ahayn lambarada aan primeka hadda waa maxay waa natural numberskii oo ah number 1 waa inuu yahay natural number waa natural numberkii number 2na waxa weeye waa inuu itself waa factorieskiisa ama divisorieskiisu waa inay noqdaan itself iyo 1 and more marka labada wixii ka bata waa wixii aan basically prime ahayn marka haddaynu usoo noqono 2gii waxaynu waa prime 2 waa prime oo horeynu usoo aragnay waa prime number 4kii haddaba aynu aragnay ee ahaa 1 iyo maxay ahayd itself oo 4 iyo 2ga laftigiisa 2 times 2 ayaa ku siinaya oo factors u noqonaya marka waa more than labadii lambare keliya ahaa marka kana muxuu noqonayaa composite number oo si aynu soo gaabin karno 8 oo kale muxuu noqonayaa 8ku wuxuu noqonayaa waa 1 oo isagii ah iyo number 8 oo itself ah ayaynu oranaynaa iyo maxaa kale 2 times 4 baa laftigiisa ayaa ah 8 ku siinaya 2 iyo 4 baa 8 ku siinaya see marka waa 1 2 4 8 marka waa more than labadan keliya hadduu ahaan lahaa wuxuu noqon lahaa prime laakiin maadaama laba kala sii wato factories waxay noqonaysaa waa composite number haddaba waxaynu doonaynaa inaynu in yar aynu halkan kusoo gabagabayno casharkeenna oo ah for example lambarkan 2ga ah number 2ga waxa weeye waa lambarka keliya number 2 waa lambarka keliya ee even numberka ah ee ah prime number dhammaantood prime numberska oo dhan oo kale wixii prime numbers oo dhani waxa weeye waa odd numberska kale oo dhani waxa weeye waa prime number bay noqonayaan maxay tahay waa lambarka keliya sorry taas waa qaldan tahay waxa weeye lambarka keliya ee even numberka ah ee prime numberka ah dhammaan inta kale ee ah I mean even numberska kale oo dhani dhammaantood wixii aan ka ahay numberka 2ga ah dhammaantood waxa uu noqonayaan waa composite number dhammaantood waayo dheh sababta ay composite number u noqonayaan waayo number kasta hadduu yahay haddaanu ahayn 2 oo inta kale oo dhan yahay hadduu 4 yahay hadduu 6 yahay hadduu 8 yahay iyo wixii lamid oo dhan iyo number kastoo 3 digit number oo ama 2 ugu dambeeyo ama waxaas ugu dambeeyaan haddii uu yahay waxaad og tahay in numberkaas iyo marka la isku dhufto 1ka uu ku siinayo laba factor iyo maadaama lambarkaasi uu isna usii qaybsami karo 2 4 kan oo kale 2 wuu qaybsami karaa because waa even number that means wuxuu ku siiyey right there 3 numbers oo factors hadduu ku siiyo macnaheedu waxa waa composite number kana waa maxay 6 kuna waa 1 iyo 6 for sure iyo labana wuu qaybsamaa oo saddex bay ka dhigayaan waa kaasa 8 kan baa usoo haray 8 kuna waa 1 iyo 8 iyo laba wuu qaybsamaa 4 buu ku siinayaa you see 4 laftigiisna wuu sii qaybsamaa 2 buu ku siinayaa marka waa more than 2 marka halkaana waxaa kaaga soo baxaya inuu yahay composite number marka numberka 2ga ah ee even numberka ah mooyaane inta kale dhan dhammaantood even numbers oo dhani waxa weeyaan waxaanu oran karnaa waxa weeyaan waa composite numbers saasuu numberka 2ga special ku noqday aad iyo aad baa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu